السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكورسيدين بشر رمضان كوك انتربرايز سوليوشن فيرجن على لابد كنا يافري لبعتنا. هذا كورسيدين هره أيان وصل هذا الماي أيان ضفع فعسان فايدة ذي اللي هاي لوجد إنه وحيد تاجن تاي حدي أنت سودا وإن نطبق نقع شركة كوباد هذا بقى شركة لواد معنتها وحين كسر قادم دونا how I can create company سياسة سمية ورتسان ayuu soo kicinay shirkadeena markan program ku soo shulay programka saasan soo kicinay marka ashirkana maanta wuxuu ku saabsan yahay shirkadu waxay abuuri kartaa QuickBooks software iyadoo loo marayo ay markaas abuuri kartaa shirkad ayaa la soo sameyn karaa QuickBooks software wana haysataa doorashada nooca QuickBooks adiga kugu xiran tahay version-ka dooranayso marka version-ka soo doorato ayaa markaas sameyn kartaa waayahay dejinta shirkadda magaca shirkadda ku qor si sax ah dooran nooca markaas ganacsigaaga uu noqonayo ku dar macluumaadka cashuur macluumaadka gelin doonta dejinta xisaabta maaliyadeed samee xisaabtaada kala duwan sida dakhliga qarashaadka leysanada kirada mushaharka waa marka sameysay shirkadda kadib haddaba shirkadda soo sameeyay wuxuu waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay no company file dabeetana waxaad ka dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay no company file locationka ayaa tagi doontaa locationku wuxuu leeyahay saddex qaybood ayuu ku kooban yahay when you create company marka shirkad cusub aad soo sameynayso oo si dhaqso ah markaas soo sameynayso oo aad u meelday iyo open inaad furto oo restore ama aad soo restore garayso existing company shirkad hore jirtay oo backupkeeda haysatay iyo open a simple file yana simple file iska furto oo shirkad waxaan ku meel gaar ah oo lagu talagalay qofku inuu markaasi waa aragnimo ka korsado ku dhufato asagu ku siiyo shirkad dhammaystiran oo shaqadeeda socoto deema laga jaray oo alaab qaadato lacag lagu leeyahay kuwa kale cid ama haysayo waxyaabahaas oo dhan open simple bas ka fikirtaa laakiin marka shirkad qoto dheer oo si fiican aad u sameynayso marka shirkad sameynayso waxay tagi doontaa halka ku qoran create new company hal mar marka kliksiso create new company waxa ku soo bixi doona daaqadan ba halkan iman doonta waa marka doonaysa shirkadda inaad si qoto dheer u samayso waxa ku soo bixi doona what does creating company file require dadana inta oo dhan inta dhaaftid another option ayaad si dooran doontaa another option marka joogtid falaad ayaad bas furi doontaa dabeetana waxaad ka sii dooran doontaa ta u hooseysa ay ku qoran tahay advanced level ama advanced setup click marka siiso daaqadan ayaa halkan iman doontaa daaqadaas halkan marka timaado waxaad ku enter your company information macluumaadka shirkadaada ayaad geli doontaa halka ku qorantay company name magaca shirkadaas ka sii doontaa shirkadda waxa la yiraahdaa Ramadan waxa bixin doona Ramadan wholesaler marka aan niri halkan wuxuu oran doonaa waxaad keenta waxa la yiraahdaa legal name-ka kuma qoraysid badhada taab ayaa hal mar taaban doontaa automatically magacan ayaa halkan soo geli doona halkan tax ID go soo dhaafi doontaa halkan ay ku qorantay street address mar waxaad ku qoran kartaa shirkadaadu halka ku taalo macluumaad si aad uga hesho hadii kale waxaad ku qoranaysaa waxa loo yaqaano macluumaadkaadu markaas aad rabto oo ah kugu muhiimsan markaas maskaxdaada ku save garaysan oo ah in la helo markaasi telefoon shirkadaada laga soo xiriiro oo oranayso telka shirkadeeda laga heli karo waa 78712 ama mobile 0634342055 halkan kale waxaad ku qori doontaa waxa loo yaqaano meesha lacagaha lagu dirayo waxaana merchant-gu waa 414 lambarkaad qoran doontaa waxaad doontaa ama idhab tana waxaad doontaa waxa weeyaan 719 number baad idin gelin doontaa
halkaa marka la soo marayo sitida waa iska dhaafi doontaa tagu miisa waa countryga halkaas adigoo jooga ayaa saa taaban doontaa dadna ooda ayaa taaban doontaa anada mar hadaan ku jirin countrygaagu anada ay xaq u leedahay ina oo lagu keenay halkan emailkaaga shirkadaad gashan kartaa website-kaaga gelin kartaa phone number-kaaga gelin kartaa waa macluumaad markaasi ku banaan laakiin anagu intaaba uma baahniye next ayaan ka doorbida halkan marka soo gaaro wuxuu select your industry waxa doorataa nooca ganacsiga aad markaasi iibin doonto aniga waa general weeyaan general product based ayaan doonaa basic business next bale shirkadda nooceeda how is your company organizing shirkadaada nooceedu maxay noqon doontaa shirkadda nooceedu anagu dooranaya waxa weeyaan waa Sony proprietorship weeyaan marka saas ayaan qoranayaa safe waaye wuxuu yiri select waxa doorataa first month bisha aad ka bilaabayso of your fiscal year marka xilligan ganacsiga ma fiscal year ba oo waxaad ka bilaabaysaa xilliga January baad ka soo bilaabaysaa bisha bilowgeeda mise taad marayso March ayaan ka bilaabi doonaa March markaan dooray wuxuu yiri halka password geli passwordka waad adkaynaysaa haddii software-da la soo gaaro software-ka 18 ama 18 20 21 22 22 23 24 software-da haddii la soo gaaro waa in uu xuruuf iyo calaamad iyo number ka koobnaada laakiin kuwii hore 1 2 3 baa iskoonaysa laakiin kan 1 2 3 hadduu dhowr shaqo hayo kadib uu ku dafiraya marka waa inaad adkaysaa tiraahdaa sida aan qoray kale ka xarfka hore ka talaba dhiga waxaan qoray mahdi daatan xataabtay at 2025 haddaan ku celiyo mar labaad wuxuu retype dub qor passwordkii marka passwordka arrinka waxa weeye m oo mahdi at 2025 tabta soo qoran next marka tirahdid hadda passwordka ayaa kala duwan passwordka hore iyo kan isku mid maaha marka waa soo saxaa inaad mahdi at 2025 haddii saxsan yahay imka uu sii deynaya weli waxa khaldan passwordka kan hoose ayaa markaasi khaldan markaasi waa mahdi at 2025 hadda ay isleeyihiin next waanu qaateenka hadda next waa qaatay create your company file waxa ku samaysmaya next marka tirahdid waxa ku samaysmaya click next to choose a file name and location to save your company file kaagi ayaa ku save garaysmaya marka next tirahdid way halkaas ayuu soo gaaray marka wuxuu name kaaga choose file name marka name waxaan jeednaa ka Ramadan wholesaler save ayaan si leeyahay next marka dhahdo hadda automatically waxa igu bilaamaya shirkadeydii oo waxa guri working creating a new company file please wait waxa ku samaysmaya faylka cusbaa ganacsigaaga shirkadaas abuuraysa file sug way wasugayna intuu samaysmaya halka markuu soo gaaro wuxuu qoraya what do you wear what do you sell maxaad iibinaysaa way waxaad iibinaysaa dadna option ku si kala siiyo wuxuu guri service only such as consulting retailers waxyaalahaas kala iibinaysaa la talin waxa rentals wakrena chimim timaha dhisankooda waxyaalahaas iibinaysaa mise waa product waxa weeyaan alaabooyin ayaad iibinaysaa kamid buugaaga hardware tickets insurance policies iyo manufacturers waxyaalahaas iibinaysaa mise both services and products such as ayaad iibinaysaa in baskiraha oo kale repairs shops that sells bikes waxyaabahaas oo dhan ayuu ku sharaxaya marka aan waxaan leeyahay labadaba alaabadoodu nooc doonta laakiin labadaba waan bixin karaa service and product waayo adigu product hayay mararka qaar
goobta waxaa soo geli kara waxa loo yaqaano service oo laga maarmaan u ah ganacsigaaga. Next bale, do you want chat sales text? ma jeceshahay in halkii shay markaad gadayso ama jumlad ku gad ama tafaariiq ku gad inaad raaciso qofka aad raaciso lacag cashuura? way dhici kartaa, laakiin haddadan la joogo halka anigu joogo nawba ayay ka tahay. Why do you want to create state estimate? miyaad samayn kartaa quotationo marka qaar? Yes ayaa leh. And tracking customer order in QuickBooks, asagana do you want to track sales orders before you invoice your customers? Yes ayaa leh. waa isticmaali karaa using statement. Yes baan leeyahay. statement ma isticmaali karaa invoice ka. yes uguur oo invoice ka shaqaha waan isticmaalaa. Yes do you want to track inventory gaaga dhaqdhaqaaqiisa ama track inventory gaaga? Yes. b waxa lahaa do you want to track time QuickBook? asagana yes uguur. ta u dambaysa la maray, do you have employees? miyaad haysataa shaqaale kugu filan ama shaqaale kuu shaqeeya? Yes ayaan leeyahay. ilaa imisa kuu shaqeeya? We have 2 employees. Way next, halkaasaan soo gaaray. Using in QuickBook. Next, select the date to start at bilaabayso tracking your finances. habkaagan dhaqaale xilliga bilaabayso beginning of the year ba mise waa xilligaad ku sugan tahay? waa xilligan ku suganahay. Next, ugu dambeyn wuxuu ku yidhi congratulations, waad ku hambalyeynay oo you have completed, waxaad dhamaystiratay the easy step interview. hab wada sheekaysigii ama hab waraysigii aan kula yeelanay fududaa ayaad dhamaystiratay. marka go to sit up buu leeyahay. go to sit up hadda waan ku dhuftay. hadda halkaa ka aragtid waxaan soo gaarin halkii ugu dambeysay. waxaan soo sameynay shirkadii, waana noo dhamaystiran tahay. waxaan ugu gudbi doonaa casharka saddexaad ee soo socda wixii ku xigay casharkeena labaad. dhammaanna waxaad soo follow garaysaan barta aan ku leenahay Facebook ee Engineer Mahdi Seteye oo maraysa 6200 qof. dhanka kale YouTube keena cusub ee ugu talagalnay bixinta casharaadka xisaabaadka ganacsiga iyo wixii IT la xiriira ama aaladaha casriga xilligan si aad ugala socoto waxaad soo subscribe-saa channel-keena Seteye Production 1. waa channel cusub maha keenii hore waxaan faraha uga qaadnay dhinaca warbaahinta ayuu khaas u noqday. kana waxa uu khaas u noqon doonaa dhinaca waxbarashada. dhammaan casharada halkan ayaad kala socon doontaan. Seteye Production 1 soddonka qof marka casharkan uu soo galo in 60 gaarsiisaan ayaan rajeynaya. waan mahadsantiin. waana ogahay in 1000 iyo 2000 3000 aad gaarsiin kartaan maalmo kooban. adinkoo mahadsan.